السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن هكذا واسيت يا برودكشن وبرت هذا برتين برشة علم الكمبيوتر كحوجها مهم كأي سيدو كلي عارمها بالشدة ما توحين بلعبدنا كورس عصب أو كقومنا دون تبقى 10 هذا بكورس ضني محايكو صعب سنتاي هذا ينوصل صوت جدا قلنا كورس ضني وحكقومنا دون تبقى 10 ككوبات سيدا هلكن كاركتيد وحويان waxay ka soo bilaabanaysaa L1 ama lesson 1 sida halka ka aragtid casharka u dambeeyana insha Allah waxaan ku soo gabagabayn doonaa lesson 100 hadaba 100 ka cashar waxay ku saabsanaan doonaan saddex qaybood qaybta koowaad waxay ka hadli doontaa QuickBook iyo akoonnadiisa sida loo soo samaysto qaybta labaadna waxay ku saabsanaan doontaa sida QuickBook iyo point of sale together ay isku xirmaan ama la isku xiro qaybta saddexaad oo u dambeysana waxay ku saabsanaan doontaa QuickBook iyo point of sale sida ay u wada shaqeeyaan iyo sida xisaabinta xisaabaadka ganacsiga ay iskaga caawiyaan hadaba QuickBook marka sida tan joogno halkan waxa noo yaala QuickBook bartana waxa noo yaala point of sale san hore soo sheegnay waxaan ku horeyn doonaa QuickBook oo aan ku soo qaadan doonaa creative account sida akoonnada loo soo sameeyo qaybtan kalena waxa aan ku soo qaadan doonaa sida markaasi looga soo galiyo markaasi wixii sales dhacaya ee alaabooyinku ka mid yihiin alaabooyinka ku yimaada kuwa laga deensado ee adiga ku yaala ayaa dhamaan dhaqdhaqaaqooda halkan laga soo galin doonaa ta kale waxa la isku xiri doonaa labadan ayaa tugada oo wada shaqeyn doona daily sales wuxuu maalin walba ka dhici doona point of sale ka wax loo yaqaano xisaabtana waxa habeenkii xiritaankeedu ka dhici doona labadaba uu ka dhici karaa laakiin muhiimadu waxa weeyaan halkan inaad habeenkii xisaabtaada u soo rarto oo soo wareejiso ayadoo aad financial ayaa qaybtan keenin doonta QuickBook financial iyo point of sale oo ah daily sales ka halkan laga soo sameeyo haday tahay alaab ku timi mid laga deensaday mid kaash ku iibisay dhamaan halkan ayaad ka soo galin doontaa midda labaad waxaan ku dari doonaa oo casharadena kamida marka ay tahay ganacsigaagu yahay ganacsi hore u soo shaqeynay oo aan ahayn ganacsi la jaan qaaday QuickBook and point of sale sida ay wada shaqeeyaan la jaan qaaday aan ahayn oo uu yahay ganacsi hore u soo shaqeynay deynta ka maqan ee markaasi kaaga maqan macaamiisha ama customerska sidee u soo gelin kartaa deyntaasi waxaynu ka soo gelin karnaa waxa loo yaqaano QuickBook point of sale waynu arki doonaa si practical hadaba intayna ka gudbin casharkeena koowaad waxaan arki doonaa how to get started sida uu soo kaca QuickBook marka san double click siisid versionada hayna waa versiono kala duwan 18 21 22 23 marka waxay u soo wada kacaan isku muuqaal loogada QBda oo loo soo gaabiyay QuickBook point of sale ayaa bartanka kaga taala point of sale kuna waxa uu muujinayaa point of sale kuna inuu yahay wax daily sales lagu sameeyo operating warqad ka soo baxaysa ay deega kaga sawiran yahay hadaba sida tan ayuu kugu soo bixi doonaa QuickBook point of sale waa get to start marka uu bilaamayo sidaas ayuu ugu dambeyn ma doonaa asagoo leh QuickBook Enterprise 2023 iyo versionada kale oo uu saa ugu soo qori karo 2018 2021 2022 saasuu soo qori doona inaan xisaabteena inta ku guda jirno aynu gudaha ugu jiri doono 5 account stable ama 5 account tables shanta account ee markaas xisaabta ku wareegto ee ku saabsan yahay ganacsigaagu ama salka ku hayo ayaa ah asset liability equity revenue iyo expenses marka set iyo production ha moogaanin waxaan gudagali doonaa casharradeena anagoo halka ka sii wada doonaa casharka labaad fadlan yaan ku dhaafin mahadsanid